agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Berbera Maxamuud Ducaale Saleebaan Tallaabo ayaa maanta shir jaraa'id oo qaar ka mid ah warbaahinta ugu qabtay xafiiskiisa dowladda hoose ee degmada Berbera waxa uu hambaliyo iyo bogaadin u diray madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo isagoo madaxweynaha ku hambaliyay socdaalka dheer ee uu ku tagay deegaanka Laasqoray ee gobolka Sanaag isagoo sidoo kale agaasimuhu sheegay inuu safarkan madaxweynuhu salka ku hayo xaqiiq raadinta nolosha dhabta ah ee ka jirta gobolada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland doonayaan si kooban uga hadlo safarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waqtigii ballaarnaa ee la socday ay ku marayeen dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu bilaabay safar si uu ka warhaynay kaga ambabaxay magaala madaxda dalka ugu baxay galbeed ka soo wareegay xeebaha galbeed jeedo oo ku gaaray ilaa xeebka xeeb oo uu Laasqoray shalay u dambeysay tagay isaga iyo waftiga ballaaran ee la socday heer qaran safarka aad iyo aad u bogaadinaya waxaan leenahay Somaliland ma rabto inay cid ku duusho uma socoto inay cid qabsato uma socoto inay diyaar uma ahayn cid ammaankeeda khalkhal geliso waxay Somaliland u taagan tahay xaqiijinta jiritaankeeda iyo ka rumaynta himiladeeda inay sugto xuduudaheeda cirka dhulka badda ammaankeeda iyo inay ku tallaabsato tallaabooyin horumar oo dhinaca ismayaasha wadanka iyo horumarkiisa dhaqaale iyo dhismaha haday tahay inta cidna u daba fadhiisanayso Somaliland ma rabto ama ma dhacayso inay danaheeda ku raali geliso cid kale ama cid kale daba fadhiisato cidii arintaas ay dhibto in Somaliland danaheeda u taagnaato cidii ay dhibtaa iyada ayaa deedanteeda taqaana laakiin Somaliland waxay diyaar u tahay inay danaheeda xaqiijiso inay jiritaankeeda xaqiijiso madaxweynaha Somaliland oo shacbigiisu ay jecel yihiin waxaan leenahay madaxweyne waan ku garab taaganahay waan kugu hambalyeynaa safarkaaga aad ku gala bixinayso dalka ee aad rabto inaad ku raadinayso xaqaa'iq ay ku nool yihiin shacbigaaga aad ka u jeceshahay muddada 22 sanadood ama 30 sanadood aad duurgalowga u ahayd iyo dubjirka iyo jabhadka aad u halgamaysay aad iyo aad baan ku bogaadinaynaa waan ku garab taaganahay habeen iyo maalin sidoo kale ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ugu jira difaac iyo gabadhana inay u joogaan iyo gaajo iyo dhib badan waxaan leenahay kaligiin maaha waxaad haysataan shacbigiinni oo diyaar u ah inay iskiin daba taagaan inay iskiin barbar taagaan inay ka dhinac dagaalamaan haddii loo baahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.